عشان والقدر قرر وقفني يمينك مو قراري هذا حكم القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنيقو مروة أنفع oo igu kusoo laabatay insha Allah markale caawina waxaa inoo wadaa bariis iyo hilib kala kacsan maasha Allah alaabta oo jimcaha lagu jimceysto insha Allah. marka hilibkeena ayaan marka hore karsan doonaa insha Allah tacaala. hilibkan karsanaya biyaan ku dhex shubaa biyahaas dhowdiyaan maaragtay markuu karsamo aan asiga iyo maraqiisa kala reebanaa insha Allah tacaala. hadda hilibkan soo karinaya insha Allah tacaala isku soo noqonaynaa. hilibkeeni hadda waa inuu bisil yahay asiga iyo maraqina waan kala saaray. maraqana waxaan rabaa inaan bariis ku karsado. hilibkana hadda insha Allah xiro oo dhacaan ku dhaafay. marka waxaan sameynayaa xawaajiyaashan dhan aan ku shushubaa kisyar waa shiilanaya marka la socod wanaagsan kana faa'iideysta asxaabteeda qaaliga. halkan waxaa igu jiro soy sauce oo light ah iyo 2 xabo oo meeshan waxa ku soo jarjartay basal oo basasha guduudan ah. halkaasna sabiibkeeni kalaradii bariiska aan ku karsan lahayn baradhada yar iyo bariiskeeni oo noo qoyshan isagana waa inoo kaasa. intaas waa u soo noqon doona insha Allah. hadda bariis hilibkan habeynaya carfinaya shiilaya kadib markaas bariiska insha Allah isku soo jeesanaynaa. sidaan aniga maaragtay jimcaha u karsado. jimcaha qaas waa ogtihiin maalmaha kale waa ka duwan yahay. marka maasha Allah ka faa'iideysta haduu Ilaahay yiraahdo. intii taqaanina maasha Allah waa baysa taqaanina way taqaanaa inta kalena waa sidaan u karsado insha Allah bariiska oo lagu jimceysto. marka basashiyan ku shubaa xawaajiyaashiisa insha Allah waan ku shubayaa kadibna si fiican u shiilayaa insha Allah tacaala. step by step idin tusaaya ka faa'iideysta haduu Ilaahay yiraahdo. saliidiya marka hore ku shubay olili firiisan dhac ku siiyay kadib basalan ku shubay haddana waxaan ku shubayaa sooskii oo light ka ah. sooskan cusbo zaid ma waa light ka kale oo adag ma ahan maadaama maraq digaag yar oo hilibka ilahay alaabtan aan ku shiilayaa tuu Ilaahay yiraahdo. sooyahan macaan oo ka dhiga hilibka inaan maaragtay aad loogu shiilo aad u macaananaya hilibka oo noo carfi doonaa. xawaashka oo bariiska loogu talagalay wax yar aan ku sameystay. kan waa xawaaji burburka iyo shiidan isna wax yariisa ugu daraya insha Allah zaid u badnayn kaas wax walbo waxa waa hilibka inuu carfo. hilibka carafta laga cunaa Soomaa marka xawaajiyaal mar walbo u baahan yahay. xawaaji yar oo gaduudan oo ku darsanayaa. maasha Allah asxaabteyda. hadda marka waxaan sameynayaa si fiican aan isku dhex gelinayaa qudaartii aan ku shubay oo dhan xawaajiyaasha aheed basasha waxa dhan waa kaas alaabtii si fiican isku soo dhex geliyay. wali dhacaan yar oo beenaha ayuu jiro marka waxaan rabaa inaan dhacaan ka soo dhameysto. maasha Allah waa kana haddana dhacaankii ii soo dhameysto wax yar marka waxaan ku darayaa kabsar caleen iyo toon isku shiidana wax yar ku darsanaya insha Allah. maasha Allah saas lagu carfiyaa la rabaa Soomaa. labadan barbaroonina waa ku darayaa waa ku shiilaya insha Allah aad ugu shiilaya insha Allah tacaala. markaas ku soo noqonaynaa marka hilib bariis ka diyaarsado. hilibka insha Allah saas uu ku diyaarsan yahay. haddana waxaan dalacan doonaa insha Allah bariiski. digsigan aan ku huurinayaa digsiga huuriska waaye oo maaragtay bariis macaan oo kala arag soo tuuraayo. marka insha Allah la socod wanaagsan sidii aan maaragtay bariiskana aan iskugu dardarsado. saliida aniga aan isticmaalaa asxaabteyda oo olive mar walba olive-taas isticmaalaa mana badinayo intaasaan ka dhigayaa insha Allah. waa saliid badan u fiicno. bariiskan aan isticmaalaa in saliid badan ma qaadayo asiga sidoo kale. marka maasha Allah basasheedii aan ku shubtay waa soo gaduudinaya insha Allah.
markay dhac isku noqdaan aan khudaarta carcarfoon ku shubaya haddana next step waa tusaya insha allah. wakaasaa basasheena way noo soo gududatay way noo soo carftay soo waxaa la rabaa inuu bariisku ku dhex dhumo waayo basashii soo taagtaagan aad bariis ku dhex shubtid hadhowdii waxa waaye basashii bariiska waa laga dhex arkaaya saas marka u gududiso laakiin lagama dhex arkaayo. marka waxaan ku darsaday qarfaha freshka ah iyo waxaan ku darsaday iyo dhagayara insha allah. marka saliidda hadaa saas wax yar ugu shiishid oo hore ka soo carfaaya bas. kadibna waxaan ku dari doonaa insha allah bariiskii oo ii dhaqan oo aan maasha allah soo qalajiyey. bariiska xoogow iska yar waaye laakiin maasha allah intaas qiyaasteena anaga aan maaragta u baahanahay laakiin adiga insha allah familkaaga hadduu badan yahay waa ka badsanaysaa oo intaa rabtaa isticmaali kartaa laakiin muhiimadda waxa waaye sida maaragtay aad maraysid le muhiim bas. maraqa xaggaasaan dabka ka saartay siduu maaragtay igu sii karkaramaayo waa xir uu qaboobay. marka hadda xawaajiyaasha usoo jeesanaya kulli aan ku darsan lahaay kabsar caleentii iyo toontii kowka ii shiidneed intaa hilibka ku dara maahan intii kaleeto ayaan bariiska ku karsanaya ayadana. halkaas waxaa iigu jiray xawaaji burbuurkan ku hormarinaya kana waa xawaaji dhudhuub gasacaan kaleeto labadaba waan ku karinaya insha allah. bariiska labadan aad ay u carfiyaan. waxyaraan kusii badsaday kana waa xawaashka bariiska marwa oo taqaanaan asigana waxyaraan ku darsanaya asigana insha allah si wixii dhan markay iskugu imaadaan oo bariiski maasha allah bariis carfaya kaala arag uu noqdo iskugu dheelitirnaado caraftiisa iyo maasha allah inta laga rabo waa intaas. wax fresh iyo wax ii shiidan oo maaragtaan saas u soo gato ayaan saa isugu dhex daraa. kabsar caleenta waa fresh toonta waa fresh oo isku shiiday maasha allah tabaarakallah lagama sheekeyn karaan ku dhahay bariiskan aan ku dhahay maasha allah xaafad shanaad markaa karinaysid caraftiisa waa laga soo dareemaa ku dhahay maasha allah. balaas waxaa ku jira waxyaabahan carcarfaayo oo heylka iyo waxa iigu qarfaha iyo waxa iigu jiro dhagayare maasha allah waa isku huurinaya waxyar kadib si fiican aan u shiilaya bariiska waa ina si fiican loo shiilo maaragtay kadib wax yar markaas asoo ku habeysmayba inaa maraqaas lagu huuriyaa la rabaa karis badan iyo maaragtay wax iyo dhaqso oo saan inta loo walaaqamay cabaar inaa shiishid waa bariiska daarta inuu bariis macaan ku noqdo. marka halkana kala radiyaa iigu diyaarsan maasha allah iyo kaarood yaran soo xoqday intaas rabaa inaan ku huursado iyo sabiibkaas insha allahu tacaala. asxaabteydii iga raali ahaada waxaa umaleynaya bariiskeyga inaan maraqa ku darsaday cajaladna markaas way ka maqan tahay raali ahaada. maraqii aan kusoo kariyey insha allah waana soo waxyaraan soo biyaha markuu iisoo dhammaystay labadan kalaran ku darayaa gaduudkaas iyo cagaarkaas any kalar ah haystid adiga bariiskaaga waa ku qurxsan kartaa. iyo xoogow sabiib sabiibka aad ugu macaan yahay bariiska maasha allah. kaaroodkan wuu macaan yahay maasha allah asigoo ma karsana kaaroodkan waa kaaroodka caadiga oo freshka oo soo xoqday oo intaa qolof ka fiiqday aan soo maaragtay waxeeyay bariiska ku huurinaysaa bariiskii maasha allah kalar xaggeeda ha noqoto caraf xaggeeda ha noqoto dhan kastaba kaaroodku ka caawinaya maasha allah. bariis qurux badan oo kaala arago federation ku soo baxayo xag orange ka xag gaduud ka xagna cagaar ka iyo bariiskii cad oo maasha allah ku habaysan. marka asxaabteyda qaaliga waxaa u maleynahay inaad bariiskeyga dhacda ah ka soo samaystay inaad ka faa'iideen insha allahu tacaala. asxaabta igu cusub waxaan leeyahay dhamaantiin soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada janaalka waa janaalkiini maasha allah. haddana waxaan karsanayaa waxaan dubanayaa waa baradho yariis waa insha allah wax yaro bariiska kor looga saaro waa lagu cuno
marka insha Allah kuwii hore noola sii jooga waxaan leeyahay maasha Allah aad u mahadsantihiin komadkiina qaaliga dhiirigelintahay insha Allah ii reeba intii asxaabtiinana u sii share garay insha Allah videoga haddaa ka heshiina suulka dhag siiya maasha Allah inaa ka hesheen qada sharaf waa liiraa oo qada Friday saa idinku sheegaba qada jimcada la lahaa jimcada waa maalmaha ciida oo aan naga leenahay da islaam nahay marka maasha Allah maalmaha kale xoogo in laga duwo ay ku fiican tahay Soomaa marka asxaabtayda qaaliga waa kaasa sidaa iyo uga faa'iideyso wanaagsan dhamaantiin bardhadan soo sameysanayaa waxa kale oo inta igu huuraayo qudaarta cagaaran oo isku jujiro ayagana sidoo kale oo aan bariiskeena dhinac ka saaran doono insha Allah iyo basashaas oo aan shiili doono hal xabo basal oo weyn soo jartay oo handhowdii bariiskaas ayagana aan ku quruxsan doono oo ku carafsan doono insha Allah korkan uga saari doono maasha Allah tabarakallah basbaaskan iguma jiro cajalada raali ahaada insha Allah mar kale idin tusi doona si aan u soo sameystay bariiskeeni waa inoo diyaar waa noo habaysan yahay wakaas saxanku ku jiro lagama sheekeyn karaan ku dhaay inaba caadi maahan aragtida u roon yahay yaa maasha Allah qofkii cunin uu baa ka sheekeyn karo insha Allah soo tijaabiye idinkana intuu Ilaahay yiraahdo salarkeena insha Allah taala mar kale ayaan idin la wadaagi doonaa sidoo kale isagana sida u diyaarsaday maadaama aan diiday cajalka inuu wax dheer iga noqdo waa soo koobay insha Allah taala marka hal ayaan idinku soo gelin doonaa hadda bariiska iyo hilibka ayaa muhiimadiisa ay ahayd insha Allah hilibkeygina waa kana asigoo shiilan asiga iyo qudaartiisiiba isdul saaran yihiin xagaasna waxaan ku shubay qudaartii cagaarneed waaye oo soo huuriyay oo biibis ku soo huuriyay cusbo yar baradhadeedii iyo basasheeyo maasha Allah qada sharafteeni jimco waa kaasa maasha Allah waxaan idin rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen saa u sameeyay maasha Allah kana heshiin maasha Allah asxaabta qaaliga ah maasha Allah tabarakallah Ilaahay anagana hanoo barakeeyo intaan haysanin Allah siiyo soo dhawaada waa taasaqadeeni maasha Allah anaga idin soo niyoonay anaga cunay anaga idin soo tijaabinay guryahan insha Allah idinkana waxaan idin rajeynayaa inaad ku tijaabsataan maasha Allah ka fiirsasho badan insha Allah laabiro qurux badan oo any kala waa qudaartii xaq dhinac kasta isku jirta asxaabtayda soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaad waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum subscribe my channel dadkeena cusub gambalaalkana furta videogaan soo gelaysaa oo la socotid insha Allah cajalada ka heshid like saar asxaabtaadana u share gareey